sugannahay deegaanka Waadixoor tirsan degmada Liibaday halkaasoo soo gaarsiinay 100 qoys oo raashina oo loogu talagalay dadka jilicsan leh ee deegaankan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha heer tuulaha iyo xubnaha la shaqeeyay ee dadka ugu mudnaa soo xulay qof walba raashin loogu talagalay oo kaas ku fadhiya aad iyo aad si gabadhibay iyo sharaf ugu shaqeeyaashu raashinka maanta waxaanu ka qaybinaynaa guud ahaan gobolka Gabiley maanta deegaanka ka qaybinaynaa laftiinka oo 60 qoys gaarsiinay iyo ramalkoon 60 qoys gaarsiinay iyo imkoon ku suganahay Waadixoor oo 100 qoys gaarsiinay سنة واحد لقول ترى قليل دتك كذي عسلا عباروس عميل ما دام سنتين عباري صانع نقدين إن هيدا النظفورة يدتك كارثة سبب هذه يدور بمرة عليك فيها وروح اللي نطلقها كذي عسلا اللي قالوا كل بوح اللي هيو ضد كنوي نقلوا ونقولوا قفل بو كفر استي ضياشنا هذه يدور نسول بينا وقولنا مهل عليا الله مسلم محمد وحوي أنا تومي تولى مركب واحد نسوق عليه عشان كايتك أي والله كيلا قبلك كيفي أنا وقت ترسلتك ما على بالي عشان كاسوان وقاينا إذا كان كيلا ما تدقيق العسان أنا وقصو حلي بيشا وانتي يعني مجرد سنين مسلك رناي وكل قدوم فرديها وأنا نوكا قدوني وحنا نوم هذا علينا عيد كستو قصو شقيسي وكو برسها بكم دي هاي محمد هذا يسوي سعود قلفتي سو بحيي والله أنت بوا نوم هذا علينا يا ضمان أنتي كلا أنا مكانه نوجد لنا كسر شقيسي كيف يقول بوا نوم هذا علينا سفي عنا وبلا حولة بلا بوقة وقوة تفكين تي رجل عسرين ونصيني وقوة فرية لما ندينا قوار كسان ارتيادي أتمنى نوم هذا علينا دوميها قبلك برساب قبلك لما أنتوا ذا يدون وهلنا عشان كنا سوق عليه ما أنت وحوي أن حول بدن باقي شيء وحوي متبدن بانو كلا سارين يقف كشيء سنة يقف كي aan jilicsameyn marka waanu kala saarnay wadiga arkay imka raashka la qaybinaya waxaana soo gaaray 100 qoys raashinkood wadiga arkay oo lagu fadhiya marka aad iyo aad u mahadsan yihiin cid soo bixisay cid koos gashay labaduba aad iyo aad u mahadsan yihiin suganahay deegaanka laftiinka halkaas oo soo gaarsiinay raashinka loogu talagalay dadka abaaruhu sameeyay dawladda Sacuudiga iyo hay'adda Nadfurs ka kaashadeen guud ahaan gobolka Gabiley aan ku qaybinay 1950 qoys waxaan ku faraxsanahay deegaanka inaan soo gaarsiino 65 qoys oo dadka jilicsan ah gudoomiyihii ama heer tuulihii laftiinkuna uu nagala wareego qof walbaana uu ku fariisto raashinka waxa lagu talagalay dadka jilicsan ee nugul maadaama abaaruhu nagu soo noqnoqdeen inay u noqoto waxay ku gaadhaan inta beerusha la soo baxayaan marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa madaxda gobolka ee barasaabka ugu horeeyo iyo maayirka iyo cid kastoo nagala shaqeysay sidoo kale waxaan mahadnaqanaa dawladda Sacuudiga oo iyaduna raashinka soo bixisay oo mar walba wada shaqeyn dhow ay leeyihiin hay'adda u diyaargarowga aafooyinka sidoo kale waxaan mahadnaqanaa gudoomiyaha hay'adda u diyaargarowga aafooyinka keedka raashinka qaranka oo isaguna mar walba ku dadaalaya shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland inay wax gaaraan kolba wixii la awoodo aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa annaguna waxaanu nahay gaarsiiyayaal iyo wadeegayaal bulshadooda iyo shacabkooda qof walba wuxuu ku fariistay raashinka loogu talagalay aad bad mahadsantiin gudoomiyaha nagala wareegaya ama heer tuulaha laftiinka Mawlid soo dhawaada saaka halkan aan isugu nimid xafladani 65 ruux oo tan yara 65 qoys oo tan yara ayaa halkan raashinkii aan ugu qaybinay mid walba baad arkaysaa uu ku fariistay qaybtiisii waxa naga soo caawiyay hadda hay'adda Nadfurs ee aafooyinka ayaa naga soo caawisay aad iyo aad baan dawladda iyo hay'adaha ugu mahadnaqaynaa dadka tan yarta ee maanta raashinka la siiyay aad iyo aadna dadkaas way ugu faraxsan yihiin annagoo ramalka waxaan idin sheegayaa in saakala soo gaarsiiyo kaydka raashin qaranka soo gaarsiiyay 65 qof raashinkood marka waad mahadsantiin aad baan idinku mahadnaqanaa insha Allah khayr baan isku ognahay marka hore magacaygu waxa weeyaan Maxamed Cali Xasan gudoomiyaha goobta Sanlaawaha waxaan 40 qoys raashinkood ayaa soo gaaray
waxaanu nooga timid hay-adda aafooyinka ee kaydka qaranka waanad ku mahadsantihiin wasalaamu calaykum